barnaamijka ayaan u gudagalaynaa xaflad ka dhacday shalay magaalada Muqdisho oo Mustafa Dhuxulow arbahan ma tagamiya oo lacagaha jawaanadii wax ma soo qaatay hadan uu soo joogo magaalada Muqdisho qadarkeeyo baa joogay Khalid Kaamil Shacbi Shab dad badan baa jooga fanaaniin Mustafa Dhuxulow baraad ma adiga ka tirsan xisbiga durdur ishaq oo ku biiray maadaama maalmihii ugu dambeeyay durdur media ay ku biirayeen siyaasiyiin sida Goodax Bar oo la kulmay ninka la yiraahdo Xasan Toob iyo barnaamijyo ku saabsanaa iyo isku dhac ku saabsanaa heestii ishaq ninka la yiraahdo Sharon Boy xafladda yaa ka qaybgalayaasha waxaa ka mid ahaa horta xafladda waa la kala kiciyay Fortune Balbalaarka ismaan dheeman oo ku maasayeen dad kale oo ka soo qayb gala waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Haaji iyo Xasan Toob xafladda waa xaflad haddana la isugu sharaxayay Mustafa Dhuxulow isku sharaxayay ishaq madaxweynaha qaranka Soomaaliya brother su'aal inaan weydiiyo Mustafa Dhuxulow haday daawanayso qaran Soomaaliyeed soo sharaxay xafladda ugu horeysay waxa ka heystay Fortune Balbalaarka oo maleynaa hataa hal cod iska daayay nus cod hataa inay heldo ma aqaana aday isku codeynayso bal nala daawada xafladda iyo qaabka u dhacday iyo Fortune Balbalaarka iyo Ismaan Deemon iyo heesaha ay qaabka u soo qaaday waxay نقول حلوان Fortune عمر علي Fortune Balbalaarka dhammaanteen waxaan ku taaganahay musharaxa madaxweynaha inaan u codeyno halkan maanta ugu amaanin gadheer waxaan u amaanay xaqiiqda aada u mahadsantihiin madaxweynahana u mahad celinaya habeenadii ugu farxad badnaa haddaan nahay dhalinyarada arrimaha bulshada ka shaqeysa waxaa musharaxnimadiisa ku dhawaaqaya musharaxa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow sacabkiisa dhaweyd balankeena waxaa waaye codsiga bulshada talo iyo tanaasul mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow waxaan ku leenahay guul bulshada qofka markuu ka imaado waan noo daawateen aan filayaa su'aasha meesha taagan ayaa waxaa ma sanadka 2020 ayaa sanad waalan ah waxyaabo badan oo ku aragn sanadkan sida coronavirus Liverpool Premier League ku guuleysatay waxyaabo badan waxa ay soo raacday ninka la yiraahdo gudoomiyihii hore 20 sano ka hor mid hadda ma aha dadaan dhalan hadhow dhigi doonaan gudoomiyihii hore wuxuu ahaa aniga barada ma aqaan been idin sheegay su'aasha ayaa waxay tahay inaan weydiiyo mudan ayaa waxay tahay ninka xilkeen ku aaminayna isweydiinay waxaa maanta garoonka diyaaradaha gobolka Shabeellaha Dhexe si diiran loogu soo dhaweeyay gudoomiyihii hore ee degmada Jowhar Fuaad Axmed Hilowle oo muddo 20 sano kadib dalka dib ugu soo laabtay bismillahirrahmanirrahiim dhammaan maamulka iyo saraakiisha waxa uu mahad celinaynaa aniga iyo gudoomiyaha degmada Raagaceele sida diiran ee loogu soo dhaweeyeen gobolka Shabeellaha Dhexe khaasatan xaruntiisa degmada Jowhar waxaan leenahay waa arin aan ka filaynay oo taariikhda gashay waxaana ugu mahad celinaynaa dhammaan saraakiisha taliyaasha ninkan xilkaan ku aamini karno ninkan ma jiib hurdo u baahayaabay nin isqaraacay ismaceeyay maalin walba gootadiisa xariifta ma jiray ma aqaan diyaaradaha iyo wax ku soo qaado fahmo gootadiisa ishaabalateentiisu meelihiisa ma wadan uu ka yimideen horta ma sheegi karo sida videoga hadda nooga muuqatay oo ka yimid Norway waxaa macquul wariyaha xataa inuu kistiis iska qaatay ninkaan la leeyahay reer Isli marka su'aasha meesha taagan ayaa waxay tahay muku aamin lahayn xil nin u baahan hurdo commentiga noogu soo qora wixii su'aal waaran intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii Somali Comedy waxay rajeynayaa caafimaad isku soo naqad xiiso leh iyo in aad codsigeedana waxaa waaye in nala kala kicisaan janalkan
Somali Comedy maanta waa maalinkii noogu horreysay in wax duubeyno hadday cabsi naga muuqato hadday wax naga qaldan yihiin hadday hadal naga dhaceen dib baan isku soo sixi doonaa codsigeenu waa subscribe like comedy share wax walbo madaxiina ayaan ku nahay aad iyo aadaan idin salaameynaa waan idin jecelnahay